haddii la soo dhaafay haween badan oo muslimiin ah oo ku nool dalka Hindiya ayaa ogaaday in loo iibgeeyay bogog internetka ah iyaga oo aan warba ka haynin. Hana Khan oo ah duuliye oo uu magaceedu ku jiray liiska ayaa sheegtay inay ku soo baraarugtay markii ay saaxiibteed u soo dirtay fariin dhanka Twitter-ka ah oo ku saabsan dhacdadan, oo markii ay gijisana geeyay barta Solidalas oo ah barnaamij iyo bog internet oo si bareera u qaatay sawirada haweenkan isla markaana abuuray qoraallo la socday sawiradooda oo la soo dhigay barta. Wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dumar diyaar u ah inay galaan heshiisyo maalmeed oo macnaheedu yahay in maalmo lala karo oo ay jirkooda ka ganacsadaan. Bogga hore ee abkan ayaa waxaa saaran sawir haweenay aanan la aqoon. Kadib markii ay hoos u sii dhaadhacdayna Hana waxa ay aragtay sawirka asxaabteeda, kadibna sawirkeedii ay aragtay. Waxaan tiriyay 83 magac, waxaana suurtagal ah inay intaasi ka badan yihiin, ayay tiri. Sawirkeyga waxay ka soo qaateen tweetka, waxaana ku qoraa magacayga. Barnaamijkan wuxuu socday muddo 20 maalmood ah, mana aanan ogeyn arrintan iyo jab ayayna igu rida, ayay tiri. Abkan ayaa laga dhigay sida inuu dadka isticmaalo siinayo fursad ay ku iibsadaan sulli oo ah eray afxumo ah oo ay adeegsadaan xagjiriinta Hinduuga ah kaas oo ay ku aflagaadeeyaan haweenka muslimiinta ah. Ma jirin wax iib ah nuucu doonaba ha ahaadee. Ujeedka barnaamijku wuxuu ahaa oo kaliya in lagu bahdilo haweenka muslimiinta ah. Hana Khan waxa ay sheegtay in loo bartilmaameedsaday diinteeda darteed. Waxaan ahay gabar muslimada oo la arkay lana yaqaano. Waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka iyo tacaddiga, ay tiri. Waxay doonayaan inay ina aamusiyaan. GitHub barta internetka ee martigelisa barnaamijka ayaa si dhaqso leh u xirtay cabashooyinka. Waxaan joojinay akoonnada isticmaalayaasha kadib baaritaanka warbixinta ku saabsan arrintan iyo dhacdooyin kale kuwaas oo dhammaantood ku xadgudbaya sharciga GitHub, ayay tiri shirkadii martigelisa abkan kaas oo warbixin soo saartay. kuwa ka soo muuqda abkan ayaa dhammaantood ahaa haween muslimiin ah oo cod dheer wax ku sheegaya ama ku dhaleeceeya oo ay ku jiraan saxafiyiin, dhaqdhaqaaqayaal farshaxamiistayaal iyo cilmi baarayaal. haweeney kale ayaa u sheegtay laanta afka Hindiga ee BBC-da si kasta oo aad u adag tahay haddii sawirkaaga iyo macluumaadkaaga kale ee shakhsiyadeed la shaaciyo way ku cabsi gelinaysaa wayna ku qalqalgelinaysaa. laakiin dhowr haween ah oo macluumaadkooda lagu wadaagay abkan ayaa qabsaday baraha bulshada kuwaas oo wacd ku maray inay la dagaalami doonaan arrintan. dadka sameeya barnaamijkan ayaa adeegsada aqoonsiyo been abuura, balse Hasiba Amin oo ah isku duwaha baraha bulshada ee xisbiga mucaaradka Koongareeska ayaa eedeeyay dhowr ciwaan oo si joogto ah u weerara muslimiinta gaar ahaan haweenka muslimka ah, waxayna sheegtaan inay taageerayaan siyaasadda dhanka Hinduuga mayilka adag. tani ma ahan markii ugu horeysay Hasiba Amin ay sheegto in haweenka muslimiinta ah sidan oo kale loo bartilmaameedsado. 11 May markii ay muslimiintu u dabaaldegayeen ciidda, kanal YouTube ah ayaa soo dhigay ciid qaasa xaraash taas oo loogu talagalay haweenka muslimiinta ah ee ka kala yimid Hindiya iyo Pakistan. toddobaadkii la soo dhaafo tweetka ayaa hakisay ciwaano sheeganayay inay iyagu ka dambeeyaan abkan lagu bartilmaameedsaday haweenka muslimiinta ah ayna dhawaan soo rogaal celi doonaan. ololeeyayaashu waxa ay sheegeen inay ku xadgudubka internetku uu awood u leeyahay xaqiraadda, cabsigelinta iyo ugu dambeyn aamusiinta haweenka. toddobaadkii la soo dhaafay in ka badan 200 oo jilaayaal caan ah, fanaaniin, saxafiyiin, saraakiil dowladeed oo ka socday adduunka oo dhan ayaa qoray warqad furan oo ay ku boorinayaan maamulayaasha Facebook, Google, TikTok iyo Twitter inay mudnaanta koobaad siiyaan badbaadada haweenka. warbixin ay soo saartay Amnesty International oo ku saabsan dhibaataynta internetka ee Hindiya sanadii la soo dhaafo waxa ay muujisay sida haweenka firfircoon loogu bartilmaameedsado. Nazira Ermun oo ah qoraa iyo afhayeenkii hore ee Amnesty ee Hindiya waxa ay sheegtay in dumarka muslimiinta ah ay ku yar yihiin baraha bulshada. Hasiba Amin ayaa sheegtay in kuwa wax dhibaya aysan wax cabsi ah qabin maxaa yeelay way og yihiin in ay badbaadi doonaan. Hana Khan ayaa tiri haddii boolisku aysan helin kuwa nagaliya iibka waxaan aadaynaa maxkamadaha, waan sii wadaynaa ilaa iyo dhamaadka. guud ahaan warbixinteena caawa ayaa intaa ku dhan. eeda wada muuqaalkan like saar oo share garee, naguna soo biir oo channelkeena YouTube subscribe saaro, sidoo kalena page-keena Facebook follow dhaho si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee aan soo gudbino.